dhimashada Salabaan Maxamed Bandaas oo shalay mahadorad ku geeriyooday xabsiga magaalada Hargeysa iminkana talaagada ku jira ee ariga loogu talagalay iyo bariis qalalan waxa kale oo jirta daryeel xumo xagga caafimaadka qofkii xanuunsada daawo kiniin baa u heli maayo waa nasiib darro weyn weeye waayo jabhada SNM 549 xubnood oo dambiye dagaal galay balaas aanad ku xiran bismillaah dhamaantii way salaamay meel kasto oo naga dhageysanaysaan halkani waa Cabaas Madani waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo dhamaan shacbiga reer SSC Khaatumo shacbiga guud ee harti iyo dawladda SSC Khaatumoba fariintan ay gaarsiisaan waxaan rabaa inaan idinka warbixiyo xaaladda maxaabiista ku xiran magaalada Hargeysa arrimo badan oo dayac badan uu ku jiro waxaan u kuurgalay xaaladda guud ay ku sugan yihiin maxaabiistu marxaladaha ay ku sugan yihiin iyo arrimaha foosho xun ee laga deyrinayo ee halkaas ka jirta dhimashada Salabaan Maxamed Bandaas oo shalay mahadorad ku geeriyooday xabsiga magaalada Hargeysa iminkana talaagada ku jira qaabka uu dhintay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin maxaabiistaasi warbixin baan rabaa inaan idinka siiyo fadlan isgaarsiiyo cid kastoo fariintan ay qusaysana fadlan gaarsii oo share garee insha Allah si fariintan meel dheer u gaadho dagaaladii dhacay maxaabiis baa lagu qabtay masa badnayn maxaabiista xagga hartiga laga qabtay maxaabiista Hargeysa ku xiran tirokoob markii aan sameeyay aan u koorgalay xaaladoodu waxa la xaqiijiyay inay dhanyihiin tirada 120 kaasi waxa dagaalka lagu qabtay waa 49 weeye inta kale waxa isugu jiraan kuwa markii laas aanood bishii January ee kacdoonku bilowday dadkii laas aanood ku xidhnaa kuwa hore oo Hargeysa ee Burco ku xidhnaa tirada waa total way tirada guud laakiin tirada dagaalka lagu qabtay waa 49 xabiistaas xaaladoodu aad baa lagu deyrinayaa markii aan u koorgalay xaaladoodu dhacdadii ugu dambeysay aan ka bilaabo waxa shalay mahadorad geeriyooday Salabaan Maxamed Bandaas oo nin reer SSC Khaatumo ninkaasi sida la sheegay maxaabiistuna ay sheegtay 4 maalmood ka hor xogtiisa ay hayeen nin caafimaad qaba oo taama oo aan xanuunsanayn oo aan dhuliyaal ahayn ayuu ahaa waxa laga warhelay ninkii yiri waa uu xanuunsanayaa isbitaalka la geeyay markii dambana geeridiisii ayaa la soo sheegay cid baaris ku sameysay ya xanuun uu dhintay ma jirto waxa soo baxay tuhno sheegaya ninka in la sumeeyay oo la dilay iminkana wuxuu ku jiraa isbitaalka Hargeysa ayuu yaalaa ninkaas waxa jirta oo laga deerinayaa maxaabiis fara badan oo xaaladoodu ay aad iyo aad u liidato oo aan helin wax daryeel waxa laga deerinayaa oo xaaladoodu aad laga deerinayaa Ahmed Maxamed iyo Cabdirasaaq Yare oo la sheegay in bire la galiyay 2 sano ka hor biraha la galiyay birihiina laga ma saarin jirkoodii baa isbedelay duubkoodii baa isbedelay xaalad khatar ah ay ku jiraan biraha waad garan kartaa 6 bilood baa loogu talagalay biraha waad garan kartaa 2 sano ay ku jiraan jirkoodii la baa isbedelay wax xaalad caafimaad ama cid dhaqaatiir geysay ma jirto waxa kale oo laga deyrinayaa Cornel Arsade oo gacantiisii la sheegay suulka iyo faxal far kaliya 2 farood kaliya shaqeynaysa inta kale ma shaqeynayaan 2 farood kaliya shaqeynaysa wax caafimaad ah oo loo fidiyay ma uu jiro waxa kale oo kamid ah Bashiir ina qorsheel Umar Mursal isagana xaaladiisa aad baa lagu deerinayaa oo waxa weeye waa uu xanuunsanaya cid isbitaal geysay ama xaaladiisa daryeeshana ma jirto waxa jirta daryeel xumo aad u baahsan oo laga sheegayo halkaasi maxaabiistu cunto fiican oo qofka maxbuuska uu xaq u leeyahay maxaabiistu xeerarka caalamiga waxay sheegayaan in loo dhaqmo sida dadka bini'aadanka in la daryeelo maadaama ay dad meel ku xiran dad aan waxa weeye access u helay inay banaanka ku baxaan inay qorrax helaan sida daraadeed waxa isugu tarsatay daryeel xumo xagga cuntada ah sida la sheegay waxa la siiyaa cuntada galeyda waaweyn ee ariga loogu talagalay iyo bariis qalalan waxa kale oo jirta daryeel xumo xagga caafimaadka qofkii xanuunsada daawo kiniin baa u heli maayo waa nasiib darro weyn weeye waayo jabhada SNM 549 xubnood oo dambiye dagaal galay balaas aanad ku xiran iyagoo 500 maxbuus ay ka xiran tahay in maxaabiistii ay gacanta ku hayeen ee Hargeysa ku xidhnaa ee looga kuwa soo loo dhaqmay wanaagsan ee loo daryeelo in kuwii ay gacanta ku hayeenna ay qaabkan wala dhaqmaan dawana sib darro waxaan u maleeyahay waxay ka samreen
shanta boqol iyo afartan iyo sagaalka gacanta lagu hayo waxaan u maleeyay way ka samreen laakiin waxaan rabaa inaan fariinta u diro marka koowaad dawladda SSC Khaatumo oo mas'uuliyadda koowaad ay ka saaran tahay mas'uuliyadda labaad ay ka saaran tahay waa laba sabab ku xorey qayb waxay ku xoreyeen dagaalkii bay ku xoreyeen lagu qabtay dawladda aan laga dhisay ee SSC Khaatumo ay dartoodu xoreyeen dartoodu dhinteen dartoodu waxa way maanta ay naafo yihiin dawladdu waxay ahayd inay mas'uuliyad ka saarto dawladdu way ku fashilantay arrintan maxaabiista inay maarayso at least ay ka warhayso imika waxa talaagada ku jira Salebaan Maxamed Bandaas oo shalay ma door geeriyooday ilaa hadda dawladda SSC Khaatumo kama aanay hadlin kama aanay tacsideen wax xiriir oo arrintaas ka sameysana ma jirto mas'uuliyadaasina mas'uuliyad wadareed ma noqonayso mas'uuliyad la wada leeyahay ma aha oo mas'uuliyad ay dawladdu leedahay way dawladdu waxay awood weyd inay xitaa tiraado meedka noo soo gudbiya anaga aasanana oo baaritaan ku sameeyana intii dagaaladu socdeen ee maxaabiista la kala hayay tiraba 3 jeer bareer SSC Khaatumo ay u gudbiyeen 3 maxbuus oo dhaawac ah jabhada SNM ilaa hadda cid laga badashay oo 3 maxbuus iyaga gacanta loo galiyay ma jirto taasina waa tala xumo iyo fashil inay dhaxdeena weeyay way marka maxbuus la wareejinayo waxa way waa inaad wax ku bedelataa aqligaana dadkeena madaxdeena dadka madaxda inoo aha waa keen way inay at least kala bedelasho ay dhacdo arinta kale jirta waxa way in maxaabiisteena lagu qaali gareeyay haday doonayaan banaanka wax soo qabsadaan ama sigaar ha ahaato rag waa kala duwan qaar balwad malaha rag balwada for example oo kale in halkii baakid oo sigaara in la yiraahdo waa $20 halkii baakid oo sigaara in $20 laga siiyo qofka qaylay oo kale rubaca qaadka in la yiraahdo waa 30 laana lacagtooda ay sanabto halka suuqa uu ku yaalo $5 marka taana maciishada in lagu qaali gareeyo oo laga baayac mushro nimankii maxaabiista hadda intaas kama jirto laascaanood iyo xabsiga laascaanood oo taa bedelkeed waxay la kulmaan daryeel wanaagsan marka maamulka iyo dawladda waxaan leenahay SSC Khaatumo wiilasha dagaalada lagu qabtay ee wiilasheenii ee dhibta iyo xanuunka u maraya dawladnimada maanta idinku aad midiyada daabkeed haysaan inaad ignore gareysaan oo aad ka hadlo weydaan oo aad duruuftooda fiirin weydaan waa qayb kamid ah fashilkina weey waa mas'uuliyadda waxa weyn kala xisaabtamayo weey waxay mudan yihiin wiilashaasi in laga warhayo in daryeelkooda laga warhayo SNM waynu isdilay xabadana isla dhacnay waynu kala adkaanay hase haatee arrimaha muhiimka adduunka dawladaha adduunka isku nacba maxaabiista ka wada hadla daryeelkooda in laga hadlo oo iyagu ay naga hadlaan oo aynu kala hadallo meed maxaa u dambeeyay kala siisido shalay meedkii ugu dambeeyay maanta talaagada ku jira ilaa hadda xukuumadeenu kama hadlan maxaa loo hagaraday maxaa looga hadli waayay maxaa loo abaari waayay wiilasha haliyada ee jeelka Hargeysa ku xiran ee qaarkood iyagoo dagaalanaya la xiray maxaa dawladdu u ignore garaysa xukuumadda hadda jirtaan la hadlaya maxay dawladdu u ignore garaysa soo nasiib darro ma wiilashani maanta inay daryeel xumo Hargeysa ugu nool yihiin 549 waxa isaaq ka xiran iyo door iyo huwantoodina maanta wax ka cabanaya iyo wax daryeel xumo ka cabanaya aanay jirin soo nasiib darro ma qofka xanuunsada caafimaadka dhakhtar gooniga leeyihiin waa check baa lagu sameeyaa qofka daawada loo keenaa hadda ma ogta kuweynina maanta in qaarkood farihii ay shaqeyn waayaan qaarkood xubnahoodii waxa weey hadii la kuray ay paralysis noqdeen mas'uuliyadaasi wallahi waa laga xisabtamaya kuwa madaxda Khaatumo ka sababta waa mas'uuliyad weey iyaga ahayd inay ka hadlaan waxa jira rag qaar in xaasaskoodii waxa weey hadii la kuray iyagu u xamaaran jireen oo iyagu u shaqeysan jireen maanta waa maxbuus waxa weey cid u shaqeynaysa ma jirto familiyadoodii waa laga deerinayaa cidda loo baahnaa in ay ka warhayso waxa weey waa shacbiga iyo dawladda shacabkana waxa hogaamiya waa dawladda weey madaxda weey arintaasi ana weey waa lagu fashilmay nimanka xaaladooda aad baan wareystay maxaabiista waxa la xukuumadda caana qobtay dabadeed la qabay waxa loo baahan yahay hay'adaha internationalka la xiriiraan kuwa laascaanood ku yimaada check ku sameeyaan la xiriiraan inaad guddi sameysaan guddi arrimaha maxaabiista ka shaqeysa inaad budget loo qorsheeyo in laga warhayo in xaaladooda la socdo hadda ma ogta wiilashaas iyo geesiyadaas xabsiga darteen ciqaabta uu mudanaya dawladnimada iyo kursiga ku fadhidaan haddaad ignore gareysaan
haddaad ka falcelin weydaan haddaad waxa weeye hada aakhiro iyo qiyaamaha waa la idinka xisaabtamaya dulmiguna ma raago xaqiiq wey dhiigoodii baad ku fadhidaan waxay ciqaabta u mudanayaan waxa weeye waa kursiga wada fadhidaan wey waxaan codsanaynaa madaxweynaha iyo xukuumadaba inay guddi u xilsaaraan degdeg loola xiriiro hay'adaha internationalka lala xiriiro feedback loo gudbiyo daryeel xumada maxaabiista ku sugan yihiin waxa loo gudbiyo in maxaabiistaasi laga hagaajiyo cuntada caafimaadka iyo hurdadaba intaba in laga hagaajiyo way waad gudbisaan ila dawlad baa tii idinku maxaabiis haysaan 549 baa haysaan hada moogta inaad ka hadashaan weeye haddaad ka hadli weydaana waxa weeye waa la kala xisaabtamaya waxaan kaloo rabaa inaan fariin u diro mucaaradka cid kastoo kursigan ugreenaysa ee mucaaradka ah ee waxa weeye waa tartamaynaa waxaad uga hadli laadahiin waxyaabaha ku gadaaban deegaankeena iyo dhulkeena wasaas rabtaan berito inaad musharaxiin iyo candidate ku noqotaan waxaad uga aaminsantiin maxay tahay wax kasta waa ogtiin dawladda waxa saxamaha shacabka kaliya ma waa in la helaa cid kale oo muwaadiniin oo xaq leh oo tartamayaal waa in mucaarad wax toosinaya oo dawladdan absolutely waxa uu weeday cid toosala waayaba ma anaga mucaaradka noqona ma anaga kiiba xukuumad taageeraya noqona wax walba ana uma noqon karo dawladda cidda pressure ka saari karta waa idinka weey waa ragga kursigan SSC qaatum rajada kale baan leeyahay inay tartamaan oo dadka hogaamiyaan haddaad maanta ka hadli weydid barina waxa rabtaan daliil ka dhigtay kii hore laga hadli jirin anaga kayga laga hadli maya doorkiina qaat siyaasiyiinta la hadlaya rajada iyo la jeclada kale SSC qaatimo ama inay hogaamiyaan taasina waa qodob farinta soo diray reer SSC qaatimo waxaan leeyahay haddii dawladdeeni ay gabtay maxaabiisteeni wiilasheeni waxaan idin xaqiijinayaa dhamaantood bay telefoon baan kula hadlay xaaladooda aad baa looga deerinayaa waa inaynu ka hawlgalno weeye sida aynu uga qayb qaadan lahayn daryeelkooda iyo xaaladooda sida ula socon lahayn taasina waa qodob cid u baahan in la xiriidho numberkayga hayla soo xiriidho WhatsAppka 467 6154 0285 hayla soo xiriirana ana idinku xoraya insha Allah maxaabiista waayo waxaan u baahanahay maxaabiisteena inaynu garab iyo gaashaan u noqono wallahi xaalad khatar ku sugan yihiin midna waxaan rabaa inaan fariin u diro isaaq jabada SNM waxaan leeyahay war maxaabiis bay idinku wayda ka xaranta tii ugu badneed 120 baad idinku gacanta ku haysaan oo waliba 49 kamida aad ku qabateen dagaal inta kalena ay noqotay kuwii kale aad Hargeysa iyo Burco ku xidhnaa ka hor dagaalkii laas aanood gobonnimo waxa lagu yaqaan wax weey Soomaalidu war haddaad maxaabiis haysaan sida kuwiina loola dhaqmo illa waa la hadashaan oo ognahay inaad kuwana ula dhaqantaan laakiin haddaad sida ku sii socotaan oo aad sida ku wadaan ogaada 549 kaabayadana cadaab iyo ciqaab maraya wargulnimada joojiya wargulnimadan idin dhaxtaale ee adduunka fiiri maxaabiista waa la kala qabtaa maxaabiista ugu badnaa waa la idinka hayaa shalay baa ugu dambaysa waa la idinka qabanay every day maxbuus waa la idinka qabtaa hal maxbuus soo cabanayna ma jiro annagu marka xabadu dhacayso markaas u beenu hadii la kuray isayna laakiin qofku markuu gacanta istaago oo magan alla noqdo markaas maxbuus weey dhibaato looma geysto xeerka islaamka iyo ka caalamiga iyo ka Soomaalida dhaqankeennaba baan mareynaa idinku laakiin islaamnimada waa ka gudubteen kii dhaqankana Soomaalinimada waa ka gudubteen kii caalamiga waa ka gudubteen sababta qof maxbuus oo aad gacanta ku haysaan inaad u quuri weydaan kaniin iyo daawo iyo daryeel maanta on leeyahay cunto xumo laga caawinayo waxaas waa gudnimo isaaqow alaysa minkum rashid war miyaan idinku jirin maxtamid mid aqli leh oo garasho leh waxaas waa gudnimo weey waynu haynaa way dagaalanay waynu kala adkaanay laakiin xeerka dagaalku way maxbuuska la kala qabto in sida xeerarka caalamiga iyo ka islaamkaba in loo dhaqmo in maxaabiisti cunto iyo daryeel xumo iyo caafimaad la'aan ay ka cabanayaan qaarkood biraha ku jiraan waa gudnimo isaaq taariikhdooda lagu xusuusan doono waxaan horseedi doontaa kuwa badan oo odayaal oo gobolkood dhacay oo hadda anaga noo xiran in iyagana ciqaab ay ku mutaan arinta ficilada aad ku kacsan oo hooyooyin badan oo Hargeysa Burco jooga ay ooyaan arintaasi ka falceliya inta miirka qabta ee isaaqaan isleeyahay waxa weey aqli iyo maskax baa lagu ogyahay arinta ka falceliya dagaalka markan goobaha nafwaaga joogno oo dagaalku socdo waxba yeena soo naxariisan laakiin marka maxaabiis kala qabno
dhankiina waxa weeye inaad ka wanaagsan anagu dhankayga cilad kama jirto si wanaagsan baa loo dhaqmaa taasna intaasaan leeyahay intaasaan ku soo gabagabeynaya insha Allah ta'ala cidii u baahan maxaabiista reersi waxaan leeyahay maxaabiistin xaalad khatar ay ku sugan yihiin wallahi ana bay telefoon la xiriiray nimankaas niman adag weeye ninkii hadduu caafimaad qabo waa la garay laakiin qofkii hadduu xanuunsanayo oo ciqaabtii xorriyad la'aanta ay ku darsato caafimaad darro cadawna gacanta ugu jiro waa dhibaato weeye cunto la'aana ku dhacdo cunto yareedii cunto xumana ku dhacdo galay baa la siinaya maxbuus marka arinta waa ka hawlgalaynaa intaas ku soo gabagabeynaa insha Allah ta'ala khayr baan idin rajaynayaa insha Allah. Assalamu alaykum.